السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالي ميل كستا joogtiin soo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan buule meel kasta adduun weynaha ka joogtiin waa in salaamay Soomaali weyn waxaan rajaynayaa caafimaad barwaaqo bashbash jumco mubaarak jumco wanaagsan ayni dhahaaya xarbay maanta sida nooga barteen cashadeeni dhinaca caafimaadka ay hali laakiin insha Allah hadda ka bacdi ilaahay haye fududeeyo inaan jimcooyinka ku soo daro ducooyinka insha Allah hadda ka horna waa dhahay laakiin xogaha ma fududa iyadoo jimcada yamaan kugu soo gaartay xitaa ma ka saysid arkaysaa ay ku dhaafta arkaysaaba soo marka asxaabta qaaliga maanta waxa waaye topigeena duco waaye ducadan wax ka mid tahay saddexda duco oo maxaa la qofka markuu walwalsan yahay ama wax ama qashay hadal xun ama ducooyinkaas ay ka mid tahay qofka markuu walwalsan yahay wax kugu furan yahay dhibaato ku qabsatay ama marka hadallo xun lagu soo sheego marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ducadan ay ku duceysan jiray xasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu rabbul arshil azim حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم waxay ka mid tahay ducooyinka subaxdii adkaaru sabaax iyo adkaaru masaa ka mid tahay ducooyinka subaxdii la akhrisado iyo ducooyinka galabtii la akhrisado qofkii akhristada dhahay ducadan ducooyinkaas ay ku jirtaa 7 jeer wax dhibaato jirkaaga ma soo gaaro ilaahay ayaana ku kaafinayo af Soomaaliga waa liiga fiican yahay Arabigana oo Soomaalida waa dad muslimiin oo Quraanka barteen ma sha Allah tabaaraka ducada kale waxa waaye اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطلع الدين وقبلة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطلع الدين وقبلة الرجال دعانا waxaa loo akhristaa saas oo kale marka walwalsan tahay marka wax kugu furan yahay dhibaatooyinka af Soomaali ka mid tahay ilaahayow waxaan ka magan galay maxal dhaha sadness waxa laga wadaa inaan noqdo qof maanta oo dhan iyo weakness iyo inaan ahaado miserable lazy af Soomaaliga liiga fiican yahay xitaa qofka xalay looga fiican ee uu haysto deen lagu leeyahay ducadan da akhris ilaahu ka qaadaya hadee maanta depression ama wax kugu furan yihiin hadda caajis dareemaysid hadii waxyaalo badan lagu leeyahay deemo ka khalqaadista ducada kale waxa way inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un lama akhri wax marka oo qofka dhintay waa la akhriya marka heshid bad news ama hadal xun ama sida hore isu dhahay awal walsan tahay ama wax aragtay shocking ah ama qof wax kaaga dhaceen first waxa la rabaa hadalkaaga afkaaga hore inaa ka soo baxo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un because wax kasta oo dhaca ilaahay amarkiisa ku dhacaan wixii dhacayna ama qof haduu ka dhintay ama hadal xun ah heshayna waxaas in qadarka ilaahay ku dhacaa saddexdan duco asxaabta qaaliga waa ducooyinka loo akhrisado marka hadda deen lagu leeyahay hadii dareemaysid maxaa la dhahaa maalintaas walwal badan iyo wadna jab iyo dhibaatooyin badan ee ku soo noloshaada ku jirto waxyaalo badan ducooyinkan saddexdan duco isku xiran ku dhilaha kullu waa saxiix waxa laga wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu ku duceysan jiray ducada ugu dambayso oo yar dheer tahay marka la inoo soo qaadanaya insha Allah jimcada dambe hadaa wax ka faa'iideen asxaabta qaaliga ha noqonina maxaa la dhahaa bakhiilin dadka muslimiinta u baahan yihiin hada dhibaatooyin badan ayaa iska jira waxyaalo badan ayaa adduunka jira asxaabta qaaliga ah because dadka hada waxyaalo badan ayaa dhacaan la wadaaga dadkiina maxaa la dhahaa asxaabta qaaliga aan carno dhinaca ilaahay aan ducooyinka isku xirno sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam hadee dhibaato ku haysato quraanka salaada ducooyinkaaga adkaartaada siiba ducooyinka waxay ka mid tahay nabigeena laga soo wariyay sallallahu alayhi wasallam akhrin jiray marka dhibaato ku furantahay ama qofka markuu dareemayo caajis ama deen badan ama walwal gurbahaad noloshaada ay ku furantahay ducooyinkan kaalmaysan ku dhihi lahaa adkaarka waxa laga helaa adkaaraha oo subaxdii la akhristay galabtii iyago af Soomaali way jiraan iyago af Ingiriis way jiraan
af Soomaali af kasta hadda waa lagu soo bixiyay adduunka. soo marka waxa kaliya oo dhibaatooyinkaas ka qaabanaya waa ilaahayna ku laabatid. asxaabta baqiilin yaa noqonina. haddaa wax ka faa'iideen la sheegareeya dadkiina meel kasta adduunka jira. hadda masiibooyinkii ayaa iska batay. meeshaana la socotiin waa channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka. waana walaashin Shukri Aadan Buule. wassalaamu calaykum waraxmatullahi